milatariga Israa'iil ayaa bixiyay amaro daadgurayn ah oo ku dhowaad kala bar 3 milyan oo qof oo Gaza ah ka hor inta aan la filayn weerar dhulka ah oo lagu doonayo in lagu ciribtiro kooxda xagjirka ah ee Xamaas kadib markii ay weerar aan hore loo arag ku qaaday Israa'iil iyo qabashada daraasiin la haystayaal ah. deegaanka godoonsan ogeysiiska daadguraynta ee la soo saaray saacadihii hore ee Jimcaha waxa uu argagax ku abuuray dadka rayidka ah iyo shaqaalaha gargaarka ee durba la halgamaya duqaymaha cirka ee Israa'iil iyo godoomin aan loo ogolayn cunto, shidaal ama sahay caafimaad. la adkeeyay godoominta dembi dagaal. amarkaas milatariga Israa'iil ayaa u sheegay 100,000 oo qof oo rayid ah oo ku nool magaalada Gaza in ay u qaxaan dhanka koonfureed ee marinka Gaza oo ah dhul xeebeed cidhiidhi ah. amarka Israa'iil ayaa lagu eedeeyay in dagaalyahanada Xamaas ay ku dhumaalaysanayaan tunnelyada hoos yimaada magaalada. daadgurayntan waa badbaadadaada, milatariga Israa'iil ayaa yiri digniin ay ku sheegeen in loo diray dad rayid ah. afhayeen u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil IDF ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay subaxnimadii Jimcaha ku qirtay in ay waqti qaadanayso in Falastiiniyiintu ay u hoggaansamaan amarkooda si ay uga baxaan, balse ma aysan xaqiijin warbixin qaramada midoobay soo saartay oo ah in ay u qabatay 2-4 saacadood. Stefane Dujarric oo ah afhayeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in saraakiisha qaramada midoobay ee ka shaqeeya Gaza ay u sheegeen IDF in dhammaan shacabka Gaza ee waqooyiga wadi Gaza ay u guuraan koonfurta Gaza 2-4 saacadood ee soo socda. tani waxay gaartay ku dhowaad 1 milyan oo qof. taangiyada Israa'iil ayaa u jihaystay dhanka xadka marinka Gaza. Maraykanka ayaa hub dheeraad ah u diraya Israa'iil ka hor inta aan la filayn duulaanka Gaza. Dujarric wuxuu sheegay in isla amarku uu quseeyay dhammaan shaqaalaha qaramada midoobay iyo kuwa gabaadka ah xarumaha qaramada midoobay oo ay ku jiraan iskuulada, xarumaha caafimaadka iyo rugaha caafimaadka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ee UNRWA ayaa waxay hoy u tahay in ka badan 6,423 oo qof oo maalmihii u dambeeyey ku barakacay marinka Gaza. ilaa hadda ma cadda tirada dadka ku nool waqooyiga wadi Gaza. qaramada midoobay waxay u aragtaa inaysan macquul ahayn in dhaqdhaqaaq noocan oo kale ah uu dhaco iyada oo aan la helin cawaaqib bini'aadinimo oo baan, ayuu yiri Dujarric. qaramada midoobay waxay si adag u codsanaysaa amar kasta oo noocaas ah haddii la xaqiijiyo in la buriyo iyadoo laga fogaanayo waxa uu bedeli karaa waxa horeba musiibo u ahaa xaalad masiibo. dhanka kale magaalada kala qaybsantay ee Qudus dadku waxa ay salaadii duhurnimo ku tukanayeen barxadda masjidka Al-Aqsa. Israa'iil waxay ka mamnuucday ragga dadoodu ka yar tahay 6 jir inay soo galaan aagga, sida uu sheegay Waqf Urdun oo maamusha goobaha barakaysan ee muslimiinta iyo kooxaha xaq u dirirka ah ee Yuhuudda ayaa ugu baaqay Israa'iiliyiinta inay ka mamnuucaan Falastiiniyiinta inay galaan. kumanaan qof oo cibaadaysanaya ayaa la filayaa inay isku dayaan inay ka soo qaybgalaan salaada Jimcaha ee goobta oo ay Yuhuuddu u yaqaaniin Temple Mount, kaas oo laga soo galo magaalada qadiimiga ah ee waddooyinka cidhiidhiga ah. isku dhacyo ayaa ka dhacay xaafadda bariga Qudus ee wadi Joos waxyar kadib markii ay isku dhaceen dalka ay dariska yihiin ee Urdun. ciidamada milatariga ayaa joojiyey mudaharaadayaal ku soo dhowaaday daanta galbeed iyo xuduudka Israa'iil oo ay dhigayeen mudaharaadyo la qorsheeyey. askar Israa'iiliyiin ah oo fuulay taangi milatari oo calanka Israa'iil wata, sida uu u ekaan karo duulaanka dhulka ee Israa'iil ee Gaza. Israa'iil ayaa difaacday jawaabta ay ka bixisay xasuuqii Xamaas ee Sabtidii lagu dilay in ka badan 3 oo qof, iyadoo taageero ka heshay Joe Biden. in ka badan 5 oo Falastiiniyiin ah oo 3 meelood meel ay carruur yihiin ayaa lagu dilay weerarada aargoosiga ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. ciidamada cirka Israa'iil ayaa Khamiistii sheegay in ay 6 oo bam ku tuureen Gaza tan iyo Sabtidii. Xamaas ayaa Jimcihii sheegtay in 3 maxbuus ah lagu dilay duqaymo ay Israa'iil fulisay 24 saac ee la soo dhaafay. safiirka Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay Gilad Erdan ayaa yiri jawaabta qaramada midoobay ee digniinta hore ee Israa'iil ee dadka degan Gaza waa ceeb. Erdan waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay tahay inay diiradda saarto cambaaraynta Xamaas iyo taageeridda xaqa ay Israa'iil u leedahay inay istifaacdo. Salama Maruuf oo ah madaxa xafiiska warbaahinta dowladda Xamaas ayaa sheegtay in digniinta raritaanku ay tahay isku day ay Israa'iil ku doonayso inay ku baahiso oo ay u gudbiso dacaayad been abuur ah, iyada oo ujeeddadeedu tahay in jahawareer lagu dhex beero muwaadiniinta laguna waxyeeleeyo isku duubnideena gudaha.
nin Falastiini ah oo carruur wata bannaanka isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza. nin Falastiini ah oo carruur wata bannaanka isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza 2 Oktoobar. Sawir Getty. digniintan ayaa timid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan uu sheegay in sii wadida dembiyada ka dhanka ah Falastiiniyiinta ay dhalin doonto jawaab ka timid dhinaca intiisa kale, iyadoo Israa'iil ay sii waday duqaymaha Gaza. Hussein Amir Abdullahian ma uusan bixin tafaasiil dheeri ah, balse dhinacii wax iska caabinta waxaa loola jeedaa isbahaysiga Iiraan, kooxaha mintidka ah ee Falastiin, Suuriya, kooxda xagjirka ah ee Xisbullah ee Lubnaan iyo kooxaha Shiicada ah ee Ciraaq iyo Yemen. iyadoo ay jirto walaac ku saabsan sii ballaadhinta colaadda, Xamaas waxay ugu baaqday Falastiiniyiinta inay kacaan Jimcaha si ay uga mudaharaadaan duqaymaha Israa'iil ee Gaza, iyagoo ku booriyey inay tagaan masaajidka Al-Aqsa oo ay isku dhacaan ciidamada Israa'iil ee ku sugan daanta galbeed ee la haysto.